الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، أفريستيت سورة البقرة. سورة البقرة آيات أفريستيتا وقصوين قصدي دارين كور رميسي لما كيرهر بنو إسرائيل حالة دودة iyo wixii ay ku qaldanayeen oo Ilaahay ummadan uga digayo iyo wixii aynu ka yeeli lahayn marka aynu tujaahaw iyaga la dhaqmayno ama la noolaanayno. warbixinna waxa ugu qiimo badan tuu Ilaahayna siiyay subhanahu wa ta'ala. qaala Allahu ta'ala, Ilaahay baa wuxuu wa idh waqti xusna bi Muhammad oo akhadna aanu qaadnay wadhkuru marka kaaful khitaab ka dambeeya wadhkuru waxa xustaan idh akhadna miisaaqakum reer banu Israa'iil waxa dib u xusuusataan ida khadna markaanu qaadnay miisaaqakum ballantiin ballan buu rasuulkiina idinka qaaday oo kitaabkiina ila idinkaga qaaday laa tasfikuuna dimaa'akum dhiigiina daadin maysaan hadaadinino haysdilina walaa tukhrijuuna anfusakum nafihiinana kama saaraysaan min diyaarikum guryihiina oo haysqixinina haysbarakicinina thumma aqrartum inta kadib idinku waa ogolaateen wa antum tashhaduuna idinkoo goobjoog u ahaan cidiba idin qasbin ballanka waa qaadateen oo Ilaahay rasuushiisi waa la qaadateen. thumma antum idinku haulaa'i kuwaasow taqtuluuna anfusakum nafihina laynaysa oo qaarkiinba qaarka kale uu dilayaa yahuudda hadaatiin wa tukhrijuuna waxa eriyeysaan oo firdhinaysaan fariiqan minkum qayb idinka mid ah من ديارهم قريهودي با كقخينيسان oo iska xiseen tadaaharuna calayhim waxa isugu hiilinaysaan bil ithmi wal udwan dambi iyo xadgudub ayaa kuwa isu kaashateen intii neeriyanaysa wa in yatuukum hadaydi yimaadaan kuwa la qixiyay aqixiseen usaara iyagoo maxaabiis oo la haysto تفادوهم وفرنيسانو waxa oranaysa warwaar tolkeene madax furasho aanu sameyn وهو arinku waxa uu yahay muharram alaykum waxa la idinka xaaraantinimeeyay ikhraajuhum saaridooda eriyada gurigooda ka erideen waa la idin diiday waa la idinka xaaraantinimeeyay afatu'minuuna bi ba'd al-kitab oo kitaabka barkii miya rumaynaysaan tawraad wa takfuruuna bi ba'd badna waa ka gaaloobaysaan miya فما جزاء من قف أبالكي مو أهاني يفعل ذلك وحا سمين يوم منكم إذن كمدا إلا خزي دل وي أبالكيس في الحياة الدنيا الدنيا نحن ذا إلى هاي كد اللينية ويوم القيامة ما لنت قيامهنا يردون وحلو علين دونا تذكر رقم ذا حنحن سبعيا إلى أشد العذاب عذاب كأضرم بقيامهنا إلى هاي قلين دونا وما الله إلهي ما هسيدي ذبا بغافل متكور لعما تعملون وحسمين إنسان إلهي كما ورلا وأجيه ومتكابلين marka labadana aayadood oo wada socda waxay tilmaameen reer banu Israa'iil dhaqan xumadooda iyo baadilka say ugu dhiiranaayeen iyo koladay rusushoodii laayeen iyaguna harisumay jiidin harisumay jiidina halaa gamba dhexdooda yaala waxay deganaa carabta waxaan ilaahay carabta la deganaa magaaladii Yathrib ama madiinadii nabiga calayhi salaatu wasalaam madiinatu rasuul sallallahu alayhi wasallam saddex qabiilo kamida yahuudi halka reer banu qaynuqaa banu qurayda banu nadiir saddexda qolada la yiraahdo banu qurayda waxay la safnaayeen ama isbahaysi la lahaayeen ansaar qoladii la oran jiray reer aws ayay isbahaysi la lahaayeen labada qabiile ee kale ee yahuud ahina ansaarta qolada la oran jiray khasraj bay isbahaysi la lahaayeen reer aws iyo reer khasrajna ila qabiiladu ma dhamaatay hoos bay u sii socotaaye way dagaalami jireen oo dagaalo odayaashii iyo raggii waaweynaa oo dham ku madheen ayay gali jireen yahuuduna markaa intay soo raacaan iyaguna ayay dagaalami jireen
marka ka yahuudiga xagga ka soo jeeda dee dagaalka lagu qabsanaya gurigiisina waa laga eriyay hadii laga adkaado tawraadna waxa ugu cad oo ku yaalay sida Ilaahay sheegay subhanahu wa ta'ala hadaa tiindada helo isku ummada wada jirka ilaashada oo haysna dilina haysna qixinina marka ummadaha kalena saasay kula dhaqmeen iyaguna saasay wada dhaqmeen idan marka ceebaha ay galeen bay kamid ahay inay isdili jireen oo isqixin jireen miisaaqi ballantii baa laga qaaday dhiigana hadaadinina xaq darrada ah guryahana ha iska saarina way ogolaadeen ثم أقررتم وأنتم تشهدون انت كدبنا هدين آيات دب قلنا قلنا إلى هاي تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم نفتينا دليسا معناه هذا ما قف ولا بيس استليا وحوى يقتل بعضكم بعضا قاركين بقارك كلو دليا وحنا النف إلى هاي وعبر يا ضدكم مركا اسكو أمديهين وحويان واسكو نفكليا سيدو الرسول كوبا كنت المامي صلى الله عليه وسلم قفك ضدك مسلمين توني كالجسد الواحد ولا تقتلوا أنفسكم من علماء قرصاصكم معنينا يعني هيستلنا وقف ولا بقف كلها دل تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان مظاهرات وحوية حوشن قال هذا ما أنت اللي قد دوليو ولا يصبها السنة يا قعنت يا لسارة دم بي حد قدو وأرمها إلى هاي وديدوي إلا يسوك هالشرة وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان عندنا بلغ ما أقول إن حد قدو بي دم بلا يسوك هالشرة واجب كان وحوي استمفلي على كعبس إلا يسوك هالشرة حتى أمركم النبي محمد عليه الصلاة والسلام مدينة سيدة معروف قاه هشيس بولا قرت هشيس كاسي هشيس دير بوها in wixii wanaagsan la iska kaashado ilaa magaha la wada bixiyo magaalada la wada difaaco gaalka aan la isu soo raacin saddexda qolobo ballantii bay ka baxeen reer banu qaynuqaac baa u horeeyay reer banu nadiir baa ku xigay reer banu qurayda u dambeeyay saddexdaba markay ballantii ka baxeen buu gacan saaray nabigu calayhi salaatu wasalaam halkan aayadda haddaynu dib ugu noqonno ilaahay wuxuu wa in yaatuukum usaara tufaaduuhum kuwii aad la dagaalamayseen haddii ansaartii idinla socotay ay soo qabsadaan maalan qolo yuhuudda iyo qolo ansaara baa wada socda yuhuuddii baa qaar la soo qabsaday way arkayaana waxay leeyihin war bal annagaa isku qolo ah haatan maal baanu ka bixinaynaa iska sii daaya marka labadii arrimood ee loo diiday oo ahaa inaan la isna dilin la isna barakicinin tii dilkii way sameeyeen barakicintii way sameeyeen madax furashadii bay laakiin ayay fuliyeen وهو ضمير كاسوا ضمير الشأن والأمر أرن كنوح يا محرم عليكم إخراجه هذا واحد ليدين دي إن قحسان ساحب ديني ولا له وأنا يا شوحي ليدين دي وفشان وكوي ديسين حيابا لقوا عيبية وحكم إذا فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض كتاب كيما بر ميستين وأهم حي ده إني كوا لقب صديح حريين qaybtay ka gaaloobeenna waxa weeye inay walaalahood laayeen ay qaxiyeen waa ceebahooda ay ka mid qofka sidaa sameeyaana ama ummadda sidaa samaysaana waa khizyun fi lxayaati dunya adduunyadoo dulle uu ku dhaco iyo aakhiro oo loo soo xaadiriyo ilaa ashaddi alcadaab waa aakhira la-aan iyo adduunyo la-aan haddaad ehelkaaga dullaysato oo sidaa aada u gasho marka tafsiirka aayadda marka la eego كلمات عين كاوي لبا الرماد أو واوين أو هير بنو إسرائيل لو دي ذا إننا لا ينودي مركين نستول تاجنه لبا الرماد إنه واقع مسلمين تأجينا مدوا حوي صفك الدماء بغير حق ليجي يقدر ترى له مضاعي مد لبعضنا أي أركينا أنا وحوي التهجير بركعين تتكلم بركعيه قرطره حق دره lagu barakiciyo ama lagu qaxiyo ama lagu firdhiyo dhiiga qofka muslimka ah iyo xaaraantinimadiisa islaamkeenu aad buu uga digay diimaha samaawiga oo dhamina waxay isku raacsan yihiin cuqubadaasi intay la eg tahay suuratu waxaad ka akhriyaysaa suurado badan laakiin suuratu
النساء ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما شن بلايا وين بين هاي وكو أروري قفك مسلم كا قفك حق درود له إلهي باو عراضي وأن عذري نار بكواريا وحاصل بكورس ابن عباس وكيا بآيات وحول وحا توبت بملهبا مرها تو قفتي لو sida gaalku markuu ku dhinto gaalnimo loo naarayo bakaana loo naaraya diimaha samaawiga sida aynu arkayna halkan ku arkayna way ka midaysnaayeen qofka bani aadamkana xaq dara lagu dilay min ajli dhalika katabna ala bani israa'iil annahu man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadin fil ardi فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا قفك لي قردره كدلا wuxuu u taagan yahay inuu dadkii oo dhan laayay waayo hal karaamay dadku lahayn hal gidaaro karaamo iyo xurmaaba ku gudbanaa mid hadduu soo jiro dhagarqaba la yidhaahdaayo dhiiggii u dhadhansanaya isaguna wuu quusanayaa waa la iska ilaalinayaa marka dilkaa isaga ah xaq darrada ah culaysku leeyahay daraaddeed maalinta qiyaamaha markuu ilaahay xisaabinayo xuquuqda addoomaha u dhaxaysa waxa u horeeya miiska la soo saarayo أول ما يقضى بين العباد يوم القيامة الدماء وديق محا حقها محا قرطرها كيبا قرطرها لو ديلي إسلام كان وحا وكتاغيه ديلك قفك مسلم كا وحا ولمدي هاي مقدساتك لورد انتو الله دقالما يلا إلاليو إلا وينيو كعبد إلهي حرمك إلهي براها حرمة له ودردارك النبي محمد عليه الصلاة والسلام قدام به سؤالوا أصحابته ويدي صدحوا بيشان واتهم أو مالك واكم هالكين توجنايو مركز أصحابته سوتش يستين سؤالي درادين يا وحلا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا ورديجين يا مالكين يا شرفتين إن أكوك لحد جذبتان حرمة إلينا وحرام سيدا حرم كان إيا وقت كانوا حرمة إليه ابن عمر الله كرر النقض مال مالمها كم إذا أبو كعبة أكفر يا سيدا سوء كعبة ما عظمك وعظم حرمتك ألا وين إذا حرمة ذا وينه لكن قل الله قفك مؤمن كحرمتي سكاوين إلهي أكتسبون أنا أيضا ده كعبة من ذو عقف قاتو جبي كذا بقى ناس مسلك وتو كنيو ومريو بعد أي لم يتهاي ده قفك ولا لك سيدا نبت يرحب بده وقولوا فنيس qofku hulaana uu gami karaa hulaana uu gami karaa hadaan godab lahayn oo walaalihi dhiig iyo godab ka galin xadiidkii Bukhari wuxuu la yazaalu almu'minu fi fushatin min diinihi ma lam yusib daman haram qofka muslimkii waa sacab iskaga jira raaxu iskaga jira xorbu yahay intaanu dhiig xaraam galin weeni digdiglayaasha mid kamid ah mid kala qori u qaato wuxuu wallahi inaan kaw kaaga siin isla markaas wuxuu wallahi adiguna inaad ka carari wadanka waaba intaaba hadduu dilada halku joogay halku galaya waa kaani waliba reerkoodii uu tagi kari laayay dad badan oo acyaanteena ninka reerka laga dilaahay beeshoodii uu tagi kari laayay war maxaad u tagi weyday haddaad dhakhtaraayd haddaad wadaadahay haddaad ganacsadahay war qaar annagaba aanaa jirto oo way igu quusanayaan buu kuleeyahay baba kuwoodii wax u tari lahaaba baba dhaxtay karaba wuu soo eegi kari laayay wuu dalxiisi kari laayay waa kaan nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam ka qofka doonaya inuu hulaan iyo hoylaan iska gamco oo raaxaysto godobtu iska deynaya iyo muslimka dhiigiis waxa aad u si cajiiba xadiidka kale isaguna sugan Tirmidhi warinayo nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu leeyahay maalinta qiyaamaha waxa imanaya qofkii la dilay iyadoo dhiigu saa hawda u hayo wuxuu ku dhagayaa kii dilay wuxuu leeyahay ummadii oo dhan way taagantay وعلامة لقى موجينه يقول لا إله وكان يدليه بل وحي يقول دليه ويديه حديثك وحي يقول لي حتى يبنيه من العرش ويسجدنا يعني إله عرش إله كله وهذا بل يبص الصومالي أسقف سنة يواي ما راح يسكوا ذا دقيس إله النبذات وهلا يسعى فيه وما قال هلا يسسيه ودم بقى هلا يسقرت أسباب تكنتين استول تاجي لهين مركين واقعين أجنه وحيابها كيني كرد دلك السجعة كين نوقف فرها بدن هرمر الآن تيجي inoogu wacan dibdhaca waxa kamid ah al-jahlu bid-diin wa haqq al-muslim qofkiyo diintiisa ka jaahila iyo xaq walaalkaaga aabiyo hooyo wada idin dhaleen dawad iska daysataa sida badan oo waa kan aad u dhimanayso Soomaa
marka dadku waxaanay garanayn kan iimaanka ay ku walaaloobeen inuu walaalkiisan oo kale yahay inama almu'minuuna ikhwa haddii fikirkaasi uu iman lahaa uu iska dayn lahaa in shaacira baa gabiyo wuxuu akhaaka fa ina man laa akhan lahu ka saacin ila alhayja bigayri silaax waroy walaalkaa ilaasho war walaalkaa ilaasho nimaan walaal lahayn waa warana dagaal u socda buu nin waran la ahoo bilaa qoriyo dagaal baan galaya horay baa laga dilaya marka barkii nin waliba walaalkii uu dilay unbaa isagana gaal dilay oo cidlo laga hela marka arrintaasina waa arrin aada u muhiima inuu qofku dareenkaasi yimaado qabyaaladda iyaduna ka mid ah laba siyood baa adduunka loo fikiraayo alumamiyatu walqabaliya in ummadnimo loo fikiro iyo in qabalinimo loo fikiro islaamkeenu ummadnimaha loo fikiro ha loo socdo ha la aamina buu leeyahy wakadalika jacalnaakum ummatan wasatan ummad baan ilahay idinka dhigay waina haadihi ummatukum ummatan waaxida qur-aanku ummad buu sheegaya dee markaad adiguna qabiil sheegto dee adhaxdaad ka jabaysa ummadaha kale caalamka ku nool iyagoon islaam wadanin haddana ummadnimo u fikiraya dadka had iyo jeer ummadnimada u wada socda horumarkooda u dhaqsanaya bal dadka soomaalida la jaarka ah sanadihii u dambeeyey 20 sana alakhiira koritaankay samaynayaan iyagoo qabaa'ila ummadnimo u socdaa haddana jumhuurkooda iyo xoogooda iyo dhaqaalahooda iyo milatarigooda xoog u soconayaan sidaasi qadiyadaasina waa qadiyad aada u muhiima ummadnimadaasi islaamkeenu una weyna barayaa mabaadida caalamka soo maray oo dhan qolo ogolaatay qabyaaladda ma leh waayo meel ay isku taagtaa baan jirinba meel salaad ka bilaabaysa wad yaro wadaysa way degaysaa wad yaro wadaysaa way kaa maranaysaa uun afar ay ilmaadeertiin unbaa isku soo hadhaysaan marka dambe waxaad hogaamisay iyo waxaad wax ka iibisay iyo haddaad sheekhtay waxaad wacdisa midna soo hadhi maayo way kala yaaceen ila wax deeqayaan jirin waxaa ka mid ah ataxriishu min alacdaa shisheeyuhu badeecadda keliyuhu iibiye ama maqaska keliyuhu muslimka u isticmaalaa waxa weeye inuu kala jabiyo waliba qabyaaladda u kala jabiyo istiraatiijiyadda ugu weyn ay isticmaalaan baa iska macruuf wey ama xuduud ha u dhigaan ama qabaa'il ha u bixiyaan ama kooxa ha u isticmaalaan dhaqaalaha weyn qaybintaa lagu bixiyaa kulamaa awqaduu naaran lilxarbi adfa'aha allah ilaahay baa wuxuu leeyahy gaalku dab buu idinku shidaya anaana baktiinaya haddaanu ilaahay naga baktiinayn oo istikfaarta iyo awliyada ay nagu jira beri hore aynu guban lahayn marka dabkaasi ilaahay uu sheegay wuu baxayaa madaxa markuu isugu dhuftay isla kululaadaan buu kan isla soo taagaya wuxuu leeyahy anaa kaa celina maxaad ii ogoshay dee dalkana waan ku ogolay dadkana waan ku ogolay bal kaasuna iga filo waxaa ka mid a dunuwulhimma dadkii oo hankoodii yar yahay ummadda cidda had iyo jeer horkacaysa marka waxooduba uu ku urursan yahay inuu maal yarna helo mansab yarna uu helo magac yarna uu helo meelaha la yaro wadwado oo hankiisiiba sidaa u yar yahay dee halaag baa u dambaynaya qofka hanka weyne waxa weeye ilaahay agtiisa iyo ummadda agteedaba qofka magac wanaagsan dhiganaya magaca wanaagsani isagu u shaqaynaya ummaddiisu u shaqaynaya ubadkiisu u shaqaynaya magacaa fiican marka ilaahay agtiisa inaad magac fiican ku yeelato ummadda dhexdeedana magac wanaagsan waa himada sarraysa weeye ilaahay kaa raalli noqdo subxaana wa tacaala oo cadaaladda ogaato marka hankii baa yaraaday waxay dadkiiba kaga ururtay in badan oo ka mid ah idinku waxela iyo adigu waxel sida loo leeyahay baa waxwaabaa ka dhacaya dhan walba waa lagu qadaya waxaa ka mid a waxyaabaha keenaya iimaanka oo yar iimaanka ummadda haddii loogu dadaalo aqoon maadiya aada loogu dadaalo adduun badan lagu bixiyaa laakiin haddii ummadda islaamka diinta lagu barbaariyo oo daayarta la kobciyo aqoontooda iyo garaadkooda siduu nebigu u kobcinaya calayhi salaatu wasalaam waxay soo bixi doonaan runtii isbeddel baa iman doona waxaynu ogsoonnay markaa taariikhda islaamka ilaa way kufi jireen muslimku uu kici jireen waxaa jiray dowladihii ugu qiimaha badnaa dowlad ka mid oo la odhan jiray dowlatulmamaaliik dowladdii addoomaha dowladdaas waxay ku timi dadkii muslimiinta markaa ka madax ahaa ayaa nin ka midii wuxuu soo urursan jiray dadka aan qabaa'il ku abtirsanaynin addoomihii la xoreeye ah ciidankuu ka dhigi jiray intuu cilmiga diinigaa baro ciidan ka dhigi jiray markii dambe wuxuuna ay noqdeen saraakiishii waddanka iyagaa oo dowladdii la wareegayba waxay raggii gaalka ka hiray ee fogeeyey gaaladii macatabku dirirkaa bay ahayd qur-aankuna wuxuu ina barayaa qabyaaladii carab haysata iimaan baa lagu riixay wadkuruu nicmat allaahi calaykum id kuntum acdaa'an faallafa bayna quluubikum faasbaxtum binicmati ikhwaana
binicmati waa nicmada iimaanka marka qofkani waa inuu gartaa qofkan kale waxa uu yahay iyo shisheeye iyo sukeeye intaa waxa sii raaca taasi marka waxaynu ku baraarujin lahayn qodobka quraanku istul taagaya ah safku dimaa iga xaraamta daadanaya asbaabta keenaysa iyo sidoo islaamku uga digay qodobka labaad raacin lahayn waxa tahjiirka bas ahlana laftiisu tahjiirku barakicinta iyo qixinta iyaduna wax xanuun badan weey qofkii qaxoonti soo maray baa garanaya qofka qaxoonti soo maray ee barakacay uu dareemi karaya xikmad baa waxay leedahay fuqahaada aad u isticmaaleen mufaaraqatul ma'luuf mashaqqa wixii ma'luufkaaga ahayd la soo qabsatay inaad ka kacdaa wax aad u dabqasho badan weey waa dalkaagii dadkaagii duunyadaadii intiiba markaad weyday ma'luuf bay ku ahaayeen eed cidlaysa soo taagto meel la galaa la waaya wax la cunaa la waaya wax laga shaqeeyo wax la karsado dadku qori un bay wada noqonayaan wadareenku qabay nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam maalintii laga eriyay maka ayuu dib u soo eegay meel dhexe markuu marayo markaasaa wuxuu dhulka ilaahay oo dhan adaan kugu jecela ilaahayna kugu jeceliye haddaan tolkay iga saarinna kaaba baxeen abubakar iyo bilaal iyo markay madiine joogaan markay xanuunsadaanba gabay bay tiriyaan maka iyo dhirteedii iyo xubbul wadan ay u calancalayaan ay u cabanayaan xanuunkii madiine markuu qabsaday casrigan aynu joogno caalamka waxaa lagu tilmaamaa tiradiisu inay tahay 7,000 milyan iyo badh adugu 8 casri sanadkan soo socda waxay ku dhawaanayaan bay leeyihiin 8 bilyan oo qof ama 8,000 milyan baa lagu sii socdaa dadka muslimiintii waa 4% taqriiban rubuc meelaha rubuc bay ku yar dhow yihiin laakiin qaxoontiga caalamka 7 milyan maraya sanadkan 7% way muslimiintu saddex rubuc way qaxoontiga dadkii adduunyada ku noolaana rubuc bay uga dhigan yihiin marka qaxoontiga waxa uu batay oo adduunka inta qaxaysaaba ay u badan yihiin mid isagu sidiisa isu soo barakacay oo adduun doonayo gaal ku sii cararaya oo arsaaqadoona qaar gaaladu ay soo eriyeen qolo kale oo iyagu isbarakaciyo muslimka barakacayaasha adduunku 7% United Nations waxay leeyihiin iyagu muslim oran maayaan laakiin waxaad ka qaadanaysaa wadamada ay sheegeen Afghanistan, Iraq, Palestine, Syria, Soomaaliya saasay leeyihiin yaana muslimka ahayn inaga kala soo baxayna de iyagu waxay leeyihiin waa wadamadaas taas waxay ku sheegaysaa inay yihiin dad runtii culays badan saaray iyagoo waliba tiradooduna inta tahay tahjiirku ama in dalkaaga laga eriyo oo lagu barakaciyaa waa asbaabta uu ilaahay ogolaaday in gaalka lagu coloobayo inama yanhaakumullahu 'anil ladina qataluukum fi diini wa akhrajuukum min diyarikum wa dhaharu 'ala ikhrajikum an tabarruhum wa tuqsid an tawallawhum mar haday guriyihiin idinka saareen diintiina idin kula dagaalameen difaac buu ilaahay leeyahay jihaadka basaasa loo ogolaaday suuratu markaad akhrido سورة الحج للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم قريهودي baa laga saaray markaas uu ogolaaday ilaahayna jihaad isku difaacaan wadadka mudan marka quraanka eegto dadka barakacayaasha in la caawiyo ee quraanku si gaar ah calaamad u leeyahay waxsiya ilaahay daraadii waliba kuwa u soo barakacay ilaahay daraadii islaamnimo lagu eriyanayo daraadii للفقراء الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه كواد إلهي درادي الدين لو إريانيو عاوية وحسية وحيا بحنا إسانسية بالقرآن كله المهم وحن وجه هذا إنا يندرينه نعموين كواوين وحكم إذا ضدك مسلمين تينا يدلكو ذا شوغان ددكو ذا وهشنيان دين تو ذا كعب هذا السنة يعني كل رقميان وحلا فضي سنكرنا معه إذا واحد مهم قف كستان مسلمين وسوتاجو ujeedooyinka islaamkana waa kamid ah dadka wixii midaynaya ee walaalaynaya ee qulubtooda isu jeedinaya iyo ku ururinta xaq oo nacaybsiyaha iyo naxliga iyo nashuushada iyo wixii dadka kala firdhinaya ee qabyaalad loo kala ereeyo ee gun iyo gob iyo sab iyo ajin iyo waxaad aragtay la kala wado dadkii la kala qufayo in laga daayo waa adduunka dad urursi baa lagu jiraaye dadka islaamka la ururiyo qulubtooda la walaaleeyo qabaday qabaylkii wada hadli waayaan oo ummadii isu iman weydo oo waxba tacaawun jiri waayo de waa laga dhax toosaya una meel aad martay lagu arki maayo marka labada arimood
ولما مشكلة دو إن هايستا سفك الدماء بغير حق ديك دادان سفك مركا لينا سفك وحوية وح قلقلية وشب مية ديك قاد دادان يا مالين بلا قولي كنت بارنت قبائل بارنت كذا بارنت وحاس مسلي كار إننا يا حق ترى كل إننا يا أما لقول دليو يو بركعين تاع لقى يا قار كودين يكون راح يسنة قرية قار كلليه ومسلمين ولا له هذا marka ayaan darada in acyaantu ay ku baraarugaan oo hormuud xaq laga noqdo iyo wanaag markaynu baraarujinayna waa kaas weeye وهذا ما أقوله وأستغفر الله والله سبحانه وتعالى